عبد القادر عصب العالي. عبد القادر عصب العالي. kursiga sumadiisu tahay hoob 140 oo kamid ah kuraasta isha lagu wadahayay ayaa xalay lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. kursigan waxaa ku tartamay xildhibaankii hore ugu fadhiyay xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Lacali iyo sidoo kale musharax Cabdikariin Cilmi Tifow. waxaana mar kale kursigan ku guuleystay xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Lacali oo helay codadkii ugu badnaa ergadii soo xaadirtay oo ahayd 101 ergo sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabelle. sumadiisu ay tahay 140 oo ay ku tartamayeen Cabdulqaadir Cusub Lacali iyo Cabdikariin Cilmi waxay ku kala dhacday oo loo kala helay Cabdikariin Cilmi Tifow wuxuu helay 22 cod. Cabdulqaadir Cusub Lacali wuxuu helay 76 cod. 3 cod way qaldantay total ergada soo xarootay 101 wabillahi tawfiiq. Cabdikariin Cilmi Tifow oo laga guuleystay ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay natiijada doorashada isla markaana uu la shaqeyn doono xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Lacali. waxaan u mahadcelinayaa ergada aan dooran oo markaysa ay mas'uuliyadan waa mas'uuliyad badan cid kale ha aado. waxaan sidoo kale markaysa u mahadcelinayaa ergadii dooratay ee ugu kalsoonaatay. waxaan qarsanahay natiijada. waxaan u hambaleynayaa walaalkay Cabdulqaadir Cusub Lacali. waxaan u rajeynayaa wada shaqeyn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Lacali oo kursigan mar kale ku guuleystay ayaa aad uga mahadceliyay ergadii codkooda siisay isla markaana waxa uu weerar dhinaca afka ah ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu sheegay inay ka go'an tahay sidii talada dalka dib looga wareejin lahaa. alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka horeysa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ergadii ka qayb qaadatay doorashadaani. intii aniga i dooratay intii walaalkay Cabdikariin dooratay baan u mahadcelinayaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Cabdikariin oo la tartamay oo maaragtay tahniideeyey. waa uga mahadcelinaa tahniideyntaasi. haddaan la hadlo ergada dooratay ama aan batalayo oo dhan waxaan rajeynayaa ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyaddan aan u orday oon ku tartamay ilaahay inuu garab igu siiyo. iguma soo ceebeenin 10 sano oo soo haayey. haddana ilaahay waxaan ka rajeynayaa subxaanahu watacaala inaanan noqon mid ku ceebooba oo mas-uuliyaddaasi iyo waajibaadkeeda si fiican u soo gudto. dadka aan matalayo iyo deegaanka aan matalayo iyo ummadda aan matalayona waxaan rabaa inaan u ballan qaado in aan maaragta uga soo baxo mas-uuliyaddaas si muhiim ah. iyagana wax walba oo markaasi matalaadaasi ay xaq uga leeyihiin dowladda dhexe oo federaalka inaan uga doono uga raadiyo. kursiga hoob 140 ayaa waxa uu kamid ahaa kuraasta isha lagu wadahayay. xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Lacali ayaana waxa uu kamid yahay mucaaradka aadka u dhaliilsan dowladda hadda talada uu hayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee waqtiga uu ka dhamaaday. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.